asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ardada qaaliga ah ku soo dhowaada smooth english system iyo cashar kale ka hor intaynan bilaabin barashada ingiriisiga waxaan rabaa inaan idinla wadaago sir muhiim ah dad badan waxay u maleeyaan in guusha waxbarashadu ay ku xihan tahay macallinka ama buugga oo keliya laakiin runta ayaa ah in deegaanka aad ku barato uu saameyn weyn ku leeyahay fahamkaaga iyo horumarkaaga haddii aad casharka ku daawanayso meel buuqa mise adigoo markasta teleefonkaaga eegaya ama dadka kula sheekaysanayaan maskaxdaadu si fiican diiradda uma saari karto casharkaas laakiin haddii aad doorato meel deggan iska fogayso waxyaabaha ku mashquuliya islamarkaana aad diyaarsato qalabkaaga ka hor casharka waxaad wax badan ku baran doontaa waqti gaaban casharkan waxaad ku baran doontaa sida aad u dhisan lahayd deegaankaaga waxbarasho si uu kaaga caawiyo inaad si fudud degdeg ah u barato ingiriisiga Preparing your learning environment waxaan diyaarinaynaa deegaankaaga waxbarasho okay what is learning environment guud ahaan maxaa loola jeedaa deegaan waxbarasho learning environment is a place an atmosphere where learning happens waxaa loola jeedaa deegaan waxbarasho waa goobta iyo cimilada okay ama jawiga waxbarashadu ay ku dhacayso meel aad wax ku baranayso okay booska aad wax ku baranayso iyo cimilada xaaladda meeshaas ay waxbarashadu ka dhacayso ama aad wax ku baranaysid ayaa waxaa la dhahaa learning environment it includes the classroom waxaa ku jira learning environmentigaaga marka laga hadlaayo classroomka ama fasalka aad casharada ku qaadato the people dadka ayaa qayb ka ah deegaankaaga the teaching method habka aad wax u baranayso ayaa qayb ka ah and the relationships between the teacher and learners markaan qiimaynayno deegaan waxbarasho waa booska aad wax ku baranayso cimiladeeda iyo jawigeeda sida ay tahay kalaaska baaxadiisa iyo maxay ahayde jawigiisa sida uu yahay dadka kuugu hareeraysan qaabka aad wax u baranayso iyo xiriirka ka dhexeeya macallinka iyo ardayga ayaa waxaa la dhahaa learning environment deegaan waxbarasho okay maxaa loola jeedaa marka deegaan waxbarasho deegaanka waxaa loo kala qaadaa deegaan waxbarasho oo guulaystay iyo deegaan waxbarasho aan guulaysanin maxaa la kala dhahaa maxayna ku kala duwan yihiin haddii macallinkaaga iyo adigaagan ardayga ah xiriirkiina aanan wanaagsanayn deegaankaas deegaan maaha oo fiican oo dhammaystiran okay ama deegaan guulaystay maaha haddii ardada asxaabtaada ah aysan casharka focuska saarin ay badanaa ciyaaraan ay ku mashquuliyaan marka kalaaska uu socdo deegaankaas maaha deegaan muhiim ah ama deegaan fiican ee waxbarasho okay sidoo kale haddii macallinka mar walba uu isticmaalo system qaldan ama teaching method qaldan hadduu isticmaalayo adigu aadan ka helin sidaasi la mid ah deegaankaasi ma noqonayo deegaan fiican oo guulaystay so deegaanka si uu u guulaysto waxa uu u baahan yahay marka koowaad in goobta wax lagu baranayo ay ahaato meel nadiif ah degan habaysan okay oon ciriiri badan jirin sidoo kale waa in marka laga hadlayo dadka wax kula baranayo ayaguna ay yihiin dad xoogga saaraya focuskooda isugu geynaya waxay qaadanayaan sidoo kale waa in xiriirka adiga iyo macallinka idinka dhexeeyana uu ahaadaa mid fiican oo wanaagsan so kaasaa waxaa la dhahaa guud ahaan marka laga hadlaayo learning environment a good learning environment deegaan waxbarasho wanaagsan helps students feel safe wuxuu ardayda ka caawiyaa inay dareemaan safe okay meel nabdoon inay joogaan respected meel lagu xushmaynayo motivated lagu dhiirageliyey ama lagu dhiiragelinayo and ready to learn ay wax ku baran karaan oo waxbarashadu ugu diyaarsan tahay okay ardayga marka uu deegaan fiican ee waxbarasho uu joogo okay waxaa la rabaa inuu dareemo inuu yahay meel safe ah uusan macallinka ka cabsanaynin uusan ka cabsanaynin maxay ahayde waxa dhici doono ama meesha amni ahaan uusan ka cabsanaynin oo meesha maxay ahayde atmosfeerkeeda ama jawigeeda ay tahay meel fiican wax lagu baran karo la fariisan karo oo maxay ahayde nadaafad ahaan cimilo ahaan iyo maxay ahayde deegaan ahaanba u diyaarsan halkaasa waxaa la dhahaa good learning environment okay so waxaa isweydiinaynaa marka why does your environment matter deegaanka muxuu muhiim u yahay okay muxuu deegaanka muhiim u yahay your success in English doesn't depend only the course okay
guushaada Englishka kuma xirna oo keliya course-ka aad qaadanaysid. It also depends on where, when, and how you study. Sidoo kale guusha Ingiriishkaaga inaad English barato si fiican ugu hadasho waxay ku xiran tahay baa lagu leeyahay halka, waqtiga, iyo sida aad u baranayso. A good learning environment helps you. Deegaanka wanaagsan, deegaanka waxbarasho fiican wuxuu ka caawinayaa focus better, inaad si fiican diiradda aad wax u saarto. Remember more, inaad wax badan xasuusato. Finish lessons faster, casharada si degdeg ah inaad u dhammayso una fahanto. Stay motivated, aad ahaato qof dhiirigelin ka haysta kalaaska iyo environmentiga uu wax ku baranayo. Okay, marka lagu leeyahay maxay muhiim u tahay? Waxay muhiim u tahay haddiiba deegaankaaga uu yahay deegaan waxbarasho loo diyaariyey oo habaysan uu yahay, waxaa waaye wax badan ayaa maxay focuska saari kartaa oo diiradaada ayaad wax saari kartaa. waxyaalihii aad baratana waad xasuusanaysaa. Okay, casharada si ciyo ay kuugu dhammaanayaan ama aad ku baranaysaa waadna fahmaysaa. sidoo kale mar walba waxaad dareemaysaa energy iyo dhiirigelin. So haddiiba marka meesha aad wax ka baranaysid ay aad kaaga fog tahay, marka xiisadii aad gaartaba adoo daalan fasalkaas tegaysid, xoogaha waa laga fiican yahay. Okay, haddii waqtiga uu ciriiri kugu yahay oo maybe waqti dambe habeenkii aad wax baranaysid ama maalintii xilli ay zaa'id u kulushahay oo cimilo ahaan aysan fiicnayn aad wax baranaysid ama meelo kale aadaysidna, at least deegaankaasi si ay wax ka yihiin. And how you study, sida aad wax u baranaysid oo casharka u akhrinaysid kalaaska marka aad joogto aad wax u baranaysidna muhiimad weyn ayay leedahay. Okay, haddaad macalinka jeceshahay wax badan ayaad baran doontaa. haddii waqtiga aad ku qanacsan tahayna wax baran ayaad baran doontaa. haddii sidoo kale sida wax lagu baraayo aad ku qanacsan tahay oo aad jeclaysanaysidna adoonan dareemayninba waxyaalo badan baran doontaa. So marka deegaanka muhiim ayuu u yahay qofka wax baranaya ama ardayga ah. Okay, 5 steps to get ready. Follow this path before every lesson. Waxaan qaadanaynaa marka adigan arday ahaan. Okay, hadda ma soconaysid, xaafad kale ma aadaysid, transportation uma baahnid, oo waxaad qaadanaysaa online course. Sidee deegaankaaga uga dhigi kartaa deegaan guulaystay ee waxbarasho? Sidee coursekan aad hadda bilaabaysid ay kugu noqon kartaa course aad si fiican wax uga barato, aad wax badan ka faa'iido intay kuu socoto. Okay, intaasaa marka waxaa u baranaynaa deegaankeena sidaan u hagaajisan lahayn, si aan casharadan si fiican ugu baran lahayn, aan anaga wax isu bari lahayn. Okay, stepka koowaad ama tallaabada koowaad waxaa waaye markaad rabto inaad deegaankaaga waxbarasho aad saxdo, waxaad u baahan tahay choose a quiet place. waxaad doorataa meel degan. dooro meel degan. Okay, maybe gurigaaga ayaa joogtaa, qolka haddii space fiican uu leeyahay qolkaaga tag oo adiga gaar ku yahay. haddii qolka dad kale ay joogaanna qaybta kale guriga qolka fadhiga tag. haddii qolkaas ay dad kale joogaanna meelo kale raadi. muhiimadda loo baahan yahay waxay tahay inaad doorato meel degan. Little or no noise, meel aan buuq lahayn ama aanan codba lahayn oo jawigeeda uu aad u degan yahay. Good lighting, okay, meel iftiinkiisa uu fiican yahay, meel iftiin leh oo aad wax ku akhrin karto markaad u baahan tahay inaad wax ku akhrido, aad wax ku qoran karto oo aad buuggaaga iyo casharaantaada si fiican aad uga arki karto waa inay tahay. Okay, a comfortable chair, inaad soo qaadato kursi fiican iyo miis iyo kursi fiican habaysan oo markaa ku fadhiso aad dareemaysid inaad waqti badan sii fadhin karto, aad wax ku akhrin karto, aad wax ku dhegaysan karto, waa inay ahaadaan. A stable internet connection, khad fiican waa inaad haysataa haddii ay yihiin kalaasas live ah. haddii ay yihiin meel aad video ka daawanaysid, waa in qadkaada uu ahaada qad fiican oo markiiba wixii aa u baahan tahay kuugu soo degi karaan. laakiin ka waran haddaad fadhiisato isla markaad dhahdo casharka la soo deg oo casharkii kalik haddaad siisidba mar walba uu ku wareeganayo oo qadba kuu jirin ama qadkaaga uu zaa'id u xun yahay, taasna caqabad kale ayay keenaysaa. So marka tallaabada koowaad waxaa looga baahan yahay ama waxaa lagaaga baahan yahay adigan ardayga ah, si aad deegaan fiican u samaysato, inaad doorato meel nadiif ah. Okay, aan buuq lahayn, iftiin leh. Okay, miis iyo kursi diyaarsan oo saacado badan aad kusii fadhin kartid waa inaad diyaarsataa oo aad harkaas casharkaaga la tagtaa.
qadkaagana waa inuu ahaadaa mid fiican. ka dheerow marka daawashada. Okay, avoid studying where people are talking. waxaad ka dheeraataa meel ay dadku hadlaayaan markaad casharada qaadanaysid ama aad wax baranaysid. watching TV, meel TV laga daawanayo ama uu ka ag dhow yahay. or playing a music, okay, ama qof ay music ugu daaran tahay. guud ahaan waxaa laga wadaa oo keliya waxaad doorataa deegaan degan oo aan buuq lahayn, aan dad joogin. haddii ay joogaanna at least dadkaasi ay yihiin dad aamusan, okay, waa inaad doorataa. stebkaas waa stebka koowaad ee tallaabada koowaad. meel degan dooro, iftiin fiican leh, buuq lahayn, miis iyo kursi soo qaado. fadhigaaga iyo qaabkaa u fadhiisanaysid xiteer saameyn weyn ayay ku leedahay waxa aad baranayso iyo halkan inta waqti aad ku qaadanayso. okay, tallaabada labaad waxaa waaye remove distractions. okay, remove distractions. waxaa iska remove garaynaysaa oo iska dheeraynaysaa waxyaalaha ku qasaya. okay, put your phone on silent, do not disturb unless you are using it for the course. tusaale, mobile ayaa haysataa. okay, waxaa ka isticmaashaa courska ama groupka waxaa uga jirtaa maybe mobile iyo laptop ayaa isticmaalaysaa. so haddii aad laptop isticmaalaysid oo videoyaasha aad ka daawanaysid ood casharada ka qoranaysid, iska dhig mobilekaaga dhankaas kale. okay, mobilekaaga iska dami ama silent ka dhig. okay, afkiisa hoos aadi, then course ka qaado, cashar ka dhegayso, cashar ka qoro. haddii mobileka keliya uu yahayna waxa aad wax ku isticmaalaysid waxaa samaysaa mute geli, aababka kale iska xir, videoga caadi u daabo. okay, put your phone on silent. midda labaad, turn off social media notifications. haddii aad mobilekaaga isticmaalaysid oo koorskan aad mobilekaaga ka daawanaysid ood casharada ka qoranaysid, aad wax ka dhegaysanaysid, waxaad samaysaa notificationska, fariimaha kaaga soo dhaca whatsappka, fariimaha kaaga soo dhaca tiktok iyo youtube iyo meelaha kale iska xir. okay, inta aad cashar ka qaadanayso fariin ay kuu soo dhicin. hadday kuu soo dhacdana ha ahaato mid adiga mar hore aa xirtay oo ku mashquulinaynin. midda kale waxaa waaye close unnecessary apps. mobile aa wax ka daawanaysaa, waxaa samaynaysaa aababka muhiimka aanan ahayn iska xir. midda kale waxaa laga yaabaa in deegaankaaga ama qolkaaga ama maxay ahayde meesha aad wax ku qaadanayso ay familka u dhow yihiin. u sheeg, tell your familkaaga u sheeg you are studying, inaad wax baranayso. okay, waxaan rabaa inaan course yar qaato 30 daqiiqo. buuqa ha layga yeerayo fadlan. u sheeg asxaabtaada, walaalahaaga, okay, iyo waalidiintaada intuba. marka stebka labaad waxaa waaye iska ilaali waxyaalaha ku qasaya. hadday yihiin dad, hadday yihiin mobilekaaga, hadday yihiin fariimo iyo wixii la mid ah. adaa og, adaa iga cilmi badan sida aad mobilekaaga fariimahaas uga xiraysid iyo weliba qaabka aad u isticmaalaysid. one notification can steal your focus for several minutes. hal fariin oo kuu soo dhacda adoo cashar dhegaysanaya ama adoo cashar qaadanaya ayaa waxay kaa qaadi kartaa daqiiqado wax aa xoog saaraysay, aa fiirinaysay, aad qaadanaysay. fariinaa kuu soo dhacayso waa akhrinaysaa. then haddii mar fariintaas akhridana attentionkaagii, casharkii, howlihii aa ku jirtay oo dhan waa ilaawaysaa. so iska ilaali oo dareenkaaga iyo deegaankaaga iyo maskaxdaada intuba ilaasho. okay, tallaabada saddexaad, prepare everything first. tallaabada saddexaad waxaa waaye diyaarso wax walba bilowga. okay, waxaa rabtaa inaad fadhiisato meel degan, miiskaas iyo kursigaas aad dul fadhiisato oo casharkaada aad qorto, aad daawato videogaas, kadib casharkii qorto, kadib akhrido, kadib dhegaysato. sax. marka koowaad, notebookaaga ama buugga casharka waa inuu diyaar ku ahaadaa. marka labaad waa in qalinkaada uu diyaar ku ahaadaa. marka saddexaad, haddii aad jeceshahay inaad biyo badan cabto intaa wax daawanaysid ama intaad miiskaas iyo kursigaas aad dul fadhidid, waa okay, oo biyahaaga waa in mar hore aad soo qaadataa. waa ogtahay ileen. okay, waa ogtahay inaad biyo rabto, aad biyo u baahan tahay. so adoo ooman, okay, ha fadhiisan oo marka hore biyaha soo diyaarso. dadka qaar baa iska jecel shukulaato iyo waxaas markay wax akhrinayaan ama wax daawanayaan ama wax baranayaan. soo qaado. okay, haddaa shaah jeceshahay sidoo kale waxaad jeceshahay soo qaado. earphones recommended. haddii
meesha aad wax ku baranaysa ay tahay meel buuq badan dad badan ay ka soo agdhowban yihiin oo asxaabtaada aad la joogtid ama familka ay ku dhow yihiin ay og yihiin inaad adigu cashar qaadanayso laakiin qasab tahay inaad agtooda wax ku qaadato soo maaha waxaad isticmaashaa earphones okay waa recommended waa lagugula talinayaa so guud ahaan marka do not stop the lesson every few minutes to look for something markaad casharka qaadanaysid intaad casharka baws dhahdo bannaanka ha aadin oo casharka yuu kaa kala go'in cashar ma qaadanaysaa haa 30 daqiiqo ma oho haa 20 daqiiqo ma oho haa 5 daqiiqo ma oho haa casharkaas dul taagnow marka koowaad dhegayso oo daawo marka labaad qor marka saddexaad su'aalaha ka shaqee marka afaraad akhri marka lixaad dhegayso then ka kac meesha 20 daqiiqo 30 daqiiqo way kugu filan tahay laakiin haddii 5 daqiiqo adoonan diyaarsanayn mar intaa miiska soo fadhiisato casharkii videogii aad daarato markii videogii uu meel dhexe ku maraayo aad biyo doonato soo laabato mar kale qof kale ku yeero aad aado haddana aad soo laabato casharkii 5 mar 6 mar aad kala goygoyso macnaheedu waxaa waa sida casharka u kala goysay ay maskaxdaadana casharkii u kala firdhinaysaa waxaa qasab noqonayso inaad mar kale ku soo laabatid ama aad dib u soo daawatid soo si aysan saas u dhicin lock in okay isxir is adkee 30 daqiiqo 20 daqiiqo oo aadan meel kala aadaynin oo mashquul kala gelaynin oo fariimo kala fiirinaynin casharkaasi okay talaabada saddexaad halkaas ayaa uga baxaya talaabada afaraad waxaa waaye study at the same time okay study at the same time hal waqti waxbaro maxaa loola jeedaa hal waqti waxbaro maybe qaarkiin way shaqeeyaan qaarkiin waa arday oo howlo kale ayay qabtaan qaarkiin howlahooda iska badan okay waxaa loo baahan yahay inaad ogaato waqtiga okay aad wax baranayso waqtiga aad fursadda haysid waqtiga aad wax badan fahmayso dabcan shakhsiyan waxaan jeclahay hadday tahay waxbarasho ani ahaan salaada fajir kadib inaan wax badan akhriyo ama wax badan barto dadku way kala duwan yihiin qaar baa jecel habeenkii qaar baa maalinta dhexdeeda wax barta qaar baa maxay ahayd salaada subax maxay ahayd jecel inay wax bartaan oo maskaxdooda zaid wax u qabataa qaarna waqti badan ma helayaanoo habeenkii kaliya ay waqti helayaan oo waxay ku xiran tahay waqtiga adiga ah helayside waqti ku gaara yeelo maybe maalin walba 7pm ha ahaato maybe salaad subax kadib ha ahaato maybe salaad subax maxay ahayd shaqada kadib ama 5 saac 4 saac maalintii waxay rabtaa ha noqoto at least waqti ku go'an yeelo okay consistency joogtaynta is more important waxay ka muhiimsan tahay than studying barashada for many hours once hal saac kaliya inaad wax barato asbuucii okay oo aad meesha isku lugoyso hal saac fadhiso 2 saac fadhiso casharadii asbuucaas oo dhan aad soo qaadato waxaa ka wanaagsan maalin walbo 5 daqiiqo inaad cashar walba geliso asbuuc kadibna ay isku noqoto 25 daqiiqo okay hal saac inaad wax barato ama 5 saacadood hal maalin wax barato waxaa ka wanaagsan maalin walba 5 daqiiqo ah okay joogtaynta waa muhiim waqti gaara yeelo waqti gaara fariiso waqti gaara dhegayso akhri waxaaga ha ku ahaadaan wax waqti ku xiran talaabada shanaad waxaa waaye learn actively u baro okay si firfircoon maxaa loola jeedaa learn actively waxaa loola jeedaa systemka aan wax ku baranayno ee englishka ah smooth english system waa system active ah waa system waxbarashadiisu ay tahay mid active ah active maxaa loola jeedaa marka waa firfircoon system firfircoonaanshaha maxaa waaye tusaale video ayaa daawanaysaa inta ugu badan macalinka wuxuu ku dhihi doonaa repeat after me iga daba dheh okay pause the videoga pause dheh oo jooji ama videoga asagoo socdo ayuu macalinka wuxuu ku dhihi doonaa iga daba dheh hello how are you ayaa la rabaa inaad adigana aad ka daba dhaxdo pause the videoga pause dheh ama videoga asagoo socdo la akhri macalinka hadba sida sharciga yahay raac repeat after the teacher macalinka marka uu dhaho kadib adna ka daba dheh write notes waxyaalaha qaar note ay u baahan yihiin note garayso hadda inta ugu badan casharadoo dhan waa la qoraaye practice speaking aloud
mararka qaar waxaa jirto qayb la dhaho pronunciation practice, okay, baraatikada dhawaaqa. markii baraatikada dhawaaqaas la gaaro adna si gaara u akhri oo waa lagu weydiin doonaaye siday tahay u akhri, okay. wax walbo practic ah sidooda u sameey. active marka waa intaas. learn actively waxaa loola jeedaa macalinka ma dhahay ila akhri haa la akhri, macalinka ma ku dhahay haa practicekan samee haa samee, okay. macalinka ma ku dhahay ila akhri ama iga dabadhe haa ka dabadhe. mararka qaar waxaa lagu dhihi doonaa casharkan codkaada soo duub oo soo dir, waana casharada oo dhan. waxaa lagu dhihi doonaa codkan dhegayso ilaan waxaa fadhidaa meel gaar kuu ah aad wax ku baranaysid oo aysan dad kale kaa agdhoweyn, oo keligaaga ayaa go'aan gaartay oo waxaad rabtaa inaad wax focus ka saarto. muhiimadda ay leedahayna waa halkaas. English improves through practice. Englishka wuxuu improvement ku sameeyaa oo uu ku hormaraa baratico, not only by listening. dhegaysi keliya kuma hormaro, practice-kana waa muhiim. marka guud ahaan wax akhri, wax qor, wax dhegayso, wax walbana siday yihiin u raac. ilaan systemka ayaa mar hore lagugu diyaariyey oo wax walba waa lagu sheegi doonaa sidaad u isticmaali lahayde. okay, waxaa la dhahaa marka remember, xasuuso, your environment shapes your results. your environment shapes your results. deegaankaaga wuxuu go'aaminayaa oo uu shaybgaraynayaa natiijada aa heli doontid. haddii meel buuq badan aa wax ku baranaysid, aadan casharka dhegaysanin, aadan casharka macalinka ka daba dhehaynin, aadan practice samaynin, natiijadaada waa la arki karaa. haddii aad doorato meel gaar ah, deegaankaaga aad ka shaqayso, miis fiican iyo kursi fiican intaa meel gaara dhigato oo aan buuq lahayn, mar walba aad fadhiisato, casharka aad qaadato, aad ku celceliso, aad dhegaysatana, natiijadaada waa la qiyaasi karaa ayadoon weli la arkin. marka deegaankaaga wuxuu shaybgareeyaa natiijadaada, wuxuu qaabeeyaa natiijadaada. A focused student in a simple room learns more than a distracted student in a perfect room. okay, waxaa la dhahay a focused student, arday focus wax saara oo diiradda wax saara, in simple room, qol fudud iskaga jiro. maybe qofkan gurigiya mashquul ku ah, wuxuu aadayaa bannaanka, meel gees ayuu fadhiisanayaa aan buuq lahayn, okay. guriga daaradiis camal u fadhiisanayaa. qofkaas oo sidaas ah oo bannaankaas fadhiyo, learns more than, wuxuu wax badan ka baranayaa oo ka fursada fiican yahay a distracted student, arday distraction ku jira ee meel buuq ah ku jira, maybe suuqa jooga ee suuq wax ku dhex barta, maybe maxay ahaydee guriga asxaabtiisa la joogaan ama walaalihiisa ay buuqa ku furayaan in a perfect room, asagoo ku jiro qol fiican. adoo qol fiican ku jira macnaheeda maaha inaad wax baranaysid ama deegaankaagu yahay deegaan saxan, laakiin deegaanka waxa saxaya waxaa waaye inuu deegaan degan ahaado, aan buuq lahayn, wixii aa u baahan tahayna aad focus saari kartid, aysan waxna ku qasaynin, okay. marka muhiimadda maaha meesha aad fadhiisanayso noocay tahay, laakiin muhiimad waxaa waaye inay tahay meel degan, aan buuq lahayn, aad wax walba focuska ku saari kartid. success starts before the lesson begins. guushu waxay bilaabataa inta casharka aanan bilaaban. prepare your environment, deegaankaaga diyaarso, then kadibna prepare your mind, maskaxdaada ka shaqeey oo maskaxdaada diyaari, okay. guusha waxay bilaabanaysaa casharada ka hor, waana sax 100%. ardada qaar wax walbo aa u sheegto way raacaan, marka casharka ay bilaabayaan, casharkoodii ugu horreeyay markay qaataan, asbuuc kadib markaad la fadhiisato, aad waxyaalaha qaar weydiiso, aad dhahdo casharkan akhri, maxaad ka fahantay, su'aalahay ku weydiinayaan, say u akhrinayaan ayaa waxaa ka dareemi kartaa 100% in ay yihiin arday u socda inay guulaystaan wax bartaan, okay. weliba muddo yar. halka kuwa kale aad ka dareemaysid inaysan waxba qaadanin ama inaysan diyaarba u ahayn. diyaar waaye, laakiin at least waxyaalaha qaar ay sameeyaan baa waxay ka dhigayaan inaysan diyaarsanayn, okay. oo guuldaradoodii ayaa soo degdegayso. so marka ugu horreyso inaad deegaanka aad doorato, inaad hadaf dejisato, inaad warqaddii maxay ahaydee daily routine-ka aad soo samaysato oo aad la socoto waqtigaada, inaad maxay ahaydee ruleski aad xasuusato oo do's iyo don'tski aad xasuusato, muhiimad weyn ay leedahay oo guushaada ay qayb ka qaadanaysaa. waana sababta intaanoo dhan aan u marayno annagoonan weli
bilaabin casharka. Waa bilaabi karnaa casharka markii aad koorska kusoo biirtaba, waa ku dhihi karnaa casharka koowaad waa kaasee daawo ama xisada koowaad soo xaadir. laakiin muhiim maaha, oo waxa ugu muhiimsan intaasaa waxay yihiin in pre-course lessonska aad qaadato markaad adigoo diyaarsan, hadaf leh, routine leh, goolkaaga kuu qoran yahay, maalin walba aad maxay ahayde wax unaa ka qabanaysid, aad casharkii bilowdo ayaad guulaysanaysaa. Okay, so reflection before your next lesson. casharkaaga soo socda inta aadan qaadan marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad fiiriso ama aad ka jawaabto su'aalahan. Su'aasha koowaad waxaa waaye, is this place quiet? meeshaan aan wax ku baranayo ma tahay meel degan? Okay, intaadan casharka qaadan isweydii, meesha aan fadhiyo hadda aan casharka rabo inaan ku qaato ma tahay meel degan, meel u qalanta, meel aan wax ku akhrin karo, meel aan codkaan ku dhegaysan karo, meel aan maxay ahayde wax ku practice garayn karo ma tahay oo degan, aan buuq lahayn, aan codka videoga iyo codka macalinka iyo codkaygaba aan si fiican uga maqli karo? haa ama maya? hadday haa tahay, okay, waa fadhiisan kartaa, casharna waa ku qaadan kartaa. laakiin maya hadday tahay, meeshaas ka soo guur. okay, midda labaad, will I be distracted? ka fikir, ma la mashquulin doonaa? maybe shaqo ayaa ku jirta, waxaa heshay 5 daqiiqo, waxaa is leedahay amaa lagugu imaadaa adoo inta fadhiyo. maybe kalaas kale ayaa ku jirta, maybe hooyo ayaa ku wacayso. mashquulkaas iyo waxaasoo dhan ka bax, howlahaaga soo xaliso, waxa lagaa rabo soo dhammee, then adoo waqti haayo, u diyaarsan, okay, mashquul kale ku jirin, soo fadhiiso. markaas kadib haddiiba ay ku saxan tahay tanna, casharkaada bilaabo. laakiin haddaa og tahay haddii 5 daqiiqa kadib lagu wacaayo, haba bilaabin ilaa aa waqti fiican ka helaysid. will I be distracted? ma lay mashquulin doonaa? maya moho. okay, sax hadday ku tahay, fadhiiso. midda kale oo saddexaad waxaa waaye, do I have everything I need? ma haystaa wax walboon u baahanahay? qali ma haystaa? haa. buugayga ma haystaa? haa. miis iyo kursi ma ii diyaarsan yihiin oo ma fadhiyaa? haa. okay, casharka waa bilaaban kartaa, waa dhegaysan kartaa, waadna qaadan kartaa koorskaas. laakiin ka waran haddii aad shaqo joogto ama bannaanka jirto ama xaafadda aad ka maqan tahay ama kursigaagii iyo miiskaagii meeshii aad wax uga baran jirtay aadan joogin, okay, oo aadan qalin haysan, oo aad leedahay keliya casharka waa dhegaysanayaa, intaan ka akhrinaya laakiin ma qoraay, waa qalad ayadana. waxaa loo baahan yahay wax walbood u baahan tahay ee course materialka ah waa inaad haysataa marka hore. okay, midda ugu dambaysa waxaa waaye, am I ready to focus for the next 15 or 20 minutes? diyaar ma u ahay inaan xoogga wax saaro oo focus wax saaro oon diiradda wax saaro 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo ee soo socda? awood ma u hayaa? ma u diyaarsanahay? hadday haa tahay waa haa, oo waa fadhiisanaysaa oo casharkaad waa qaadanaysaa. laakiin haddii uu shaki jiro, waa iska ilaalinaysaa. maxaan ula jeedaa tan? ardayda qaar baa ayagoo daalan bay cashar qaadanayaan, dadka qaar shaqo ayay ku soo daahaan, qaar baa howlo ad adag haaya, qaar baa maxay ahayde meelo qaar ku soo daahay oo waxay rabaa inay koorskii qaataan ama casharkii qaataan. laakiin qofkan 5 daqiiqa ma sii fadhin karo, marka uu isleeyahay casharka qaado, hurdaa hayso. so casharka iska dhaaf. okay, 15 daqiiqo iyo 20 daqiiqo haddii aadan wax focuska saari karin, iska dhaaf. adoo shaqaynaayo, cashar ha qorin, casharna ha qaadan. laakiin waqti ma heshay? haa. 1 saac ma heshay? 20 daqiiqa ma haysaa? okay, why? am I ready? ma u diyaarsanahay to focus inaan wax diiradda saaro for the next 15 or 20 minutes? 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo ee soo socota, diiradda wax ma saari karaa oo fursad ma hayaa oo energy ma hayaa? hadday haa tahay, ku soco. haddaysan haa ahaynna, ka dhammow casharkaas ee markii aad fursad hesho dib ugu laabo. okay, marka waxaa la dhahay, if the answer is yes, haddii su'aalaha aan ku soo weydiiyey kulli ay yihiin haa, you're ready to learn. waxaad diyaar u tahay inaad barato ood casharkaada qaadato. laakiin ka waran hadday yihiin maya ama mid ka mid ah ay tahay maya? okay, hadday saas tahay, waxba ha qaadan oo iska jooji. mid hadday maqan tahay, inta kale ma shaqaynayaan. okay, waxaan jeclahay casharkan in si fiican loogu fahmay oo looga faa'iidaystay. waxaan rajaynayaa in casharkan si fiican loo dhaqangelin doono, muhiimadiisana siday tahay loo ilaalin doono. marka koowaad, si aad deegaankaaga u dhisatid, waxaad u baahan tahay inaad meel degan aad doorato, iftiin leh, okay, miis nadiif ah, meel nadiif ah, soo carfaysa,
miiskaaga biyahaaga iyo waxaaga oo dhan ay ku saaran yihiin oo jawi degan waa inaad marka hore aad doorataa. Steepka labaad waa inaad iska dheeraysaa wax walba oo ku qasaya oo moodkaaga iyo xaaladaas markaas aad ku jirtay ku qasaya ama howlo kale ku gelinaya waa inaad iska ilaalisaa. Marka saddexaad waa inaad diyaarsataa wax walbood u baahan tahay, buugaagtaada, qalinkaaga, mobilkaaga, khadkaaga iyo wixii la mid ah. Midka afaraad ama tallaabada afaraad waxaad u baahan tahay maalin walbo in waqti gaar ah aad siiso barashada Englishka. Okay, midka shanaad waxaa waaye marka aad wax baranayso waa inaad u barataa learn actively, si firfircoon waa inaad u barataa oo practice-ka iyo wax walbo ee casharka muhiimka u ah sidooda aa u ilaalisaa. Haddii intaasoo dhan aad soo samaysay deegaankaaga iyo xaaladaada iyo sidaa u diyaarsan tahay, waxaa laga akhrisan karaa inaad tahay arday guulaystay ama deegaan guulaystay iyo in kale. Su-aalahanna waa su-aalo kooban oo aa u baahan tahay inaad isweydiiso ka hor intaadan cashar ka qaadan. Is this place quiet? Meeshaan aan joogo meel degan ma tahay? Will I be distracted? Meeshaan meel aan cashar ku qaadan karo oo jawigeeda sidaan sii ahaanaya miyaa, mise meel haddaba lasoo maxay ahayde dhoomi doono waaye? Do I have everything I need? Ma haystaa wax walboon uga baahanahay koorskan? Casharkii ma la isoo diray? PDF-kii ma haystaa? Buugaagtayda, qalmaantayda iyo wixii kaloon u baahanahay ma haystaa? Midda ugu dambeysa waxaa waaye waqti ma u hayaa inaan 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo aan wax focuska saaron, diiradda saaron, cashar dhamaysto booq la-aan. Hadday jawaabtu tahay haa, dhammaan su-aalihii lasoo sheegay waa bilaabi kartaa. Haddii mid ka mid ay tahayna maya, waxba ha bilaabin. Waxaan ku rajaynayaa inaad casharka si fiican u fahantay. Intaan dib uga kulmi doono waxaan idinkaga tagaya sidaas iyo maca salaama.